xiriirka ugu weyn ee ka dhaxeeya waxbarashada iyo bulshada waxaan dhixi karnaa waa xiriir keeni kara bulshada inay isku xirmaan ayna horumariyaan noloshooda waa xiriir dhalin kara waxbarashada waxay isku xirtaa bulshada waxayna ka shaqeysaa horumarka bulshada waxbarashadu waxay u leedahay muhiimad aad u ballaaran bulshada haddii aan tusaale ahaan ku soo qaado qof walba oo adduunkan yimaada wuxuu dhashaa asigoo fitrada islaamka ku dhashay laakiin maskaxdiisu way maran tahay macalinka ugu weyn oo qofka waxbarana waxa waaye ugu horeeya waxa waa hooyadiisa waa hooyada kadibna waxbarashadii psychology-ga caqliga qofka markuu soo qaato wuxuu u soo gudbaa environment deegaan u soo gudbaa kadibna waxbarasho bilaabaa qofkii waxbarashada marka muhiimadda ugu weyn ay leedahay waxa waaye waxay samaysaa wax la yiraahdo isbedel waxay ku keentaa qofka isbedel inuu qofka isbedel ku dhaco isbedel xagga akhlaaqiyan inuu ku dhaco qofka akhlaaqiisa isbedesho isbedel xagga fikir inuu qofka qaabku u fikirayo inuu isbedelo isbedel xafka hal abuur qofka inuu la yimaado hal abuur isbedel xagga technology qofka inay waxbarashadu waxay keentaa isbedel xagga technology ay keentaa waxbarashadu waxay keentaa isbedel xagga kor u qaadista wacyiga bulshada marka waxbarashada marka muhiimado fara badan ay leedahay laakiinse muhiimadaha ugu ballaaran waa qodobada hadda aan sheegay inta badan ardayda oo kolleega ah oo isku fasalka ah ee halka meel wax ka wada barta waxaa dhaxmaro xiriir ka duwan xiriirka kale ardayda kale wuxuuna ku dhashaa xiriirkaas bilmathalan macallimiinta qaar waxay sameeyaan assignment ay diraan ardayda waxay u diraan assignment-gaasoo qofka uu ka xalinayo group ardayda ay ku xalinayaan sida jaamacadaha oo kale iyo ardayda form 4 oo kale ardayda kaleba hadda waxbarashada casriga ah arday kaligiis assignment ma loo dirabo ardayda waxaa assignment loogu diraa group taas waxay keenaysaa marka ardayda inay wada tashaan ay wada meel fariistaan ay wada balamaan ay si dhex galaan ay wada kaftamaan ay macnaha isdabci fahmaan macnaha ayagoo isku fasal ah kuwii kale oo isku fasalka ahaa kuwa isku groupka ahaa way iskaga faham badan yihiin macnaha waxay keenaysaa ardayda markii dambe inay isdhex galaan ay friends noqdaan biri marka taas waxay abuuri kartaa marka ardaydii markay iskuulkii ka baxaan xiriirkaas wuxuu keeni karaa in isaacidaan ay dhacdo ardaygan inuu arko soo ardaygan Janis haysto oo macnaha fursad shaqo ama meel mas'uulka ah ardaygan oo kale inuu arko oo saaxiibkiisa oo kale ah oo asigana macnaha shaqo la'aan ay hayso inuu gacan qabto waa laga yaabaa waxaa laga yaabaa fursado kale oo si kale oo caafimaad inuu macnaha ninkan saaxiibkiisa wax ugu qabto asigoo ninkan oo dhakhtar noqdo kale ninkan oo falli kara uu bartay filligan ninkan uu bartay in ninkan baahi ka soo gasho oo ninkan uu ka xalay oo u fududeeyo marka xiriirka ka dhaxeeya ardayda inta isku goobta waxbarasho ay joogaan wuxuu keeni karaa marka xiriir oo macnaha ka fiican xiriirka walaaltinimada oo labada arday macnaha inaysan weligooda is iloobin ay si fiican macnaha isku caawiyaan oo wax isku qabtaan environment-gaas oo goobta waxbarasho dadka ku nool iyo dadka ku nool meel aansan waxbarasho aysan lahayn isku dhaqan ma aha isku dabeecad ma aha isku kartina ma aha macnaha hadda for example tusaale ahaan xaafad ay iskuulaadka ay ku yar yihiin uu ku badan yahay ciyaalkii macnaha waxyaabahan kale oo dadka ay ku mashquulaan muusiga iyo waxaas iyo uu ku badan yahay oo kale environment noocaas oo kale ah bulshada ku nool marka aad fiiriso iyo environment oo iskuulaadka ay ku badan yihiin waxaad dareemi kartaa marka environment-ga iskuulaadka ay ku badan yihiin at least dad xun waa la heli karaa laakiinse dadka meeshaas ku nool waa dad iscaawiya waa dad macnaha ii sheeg horumarineed oo ka shaqeeya deegaankooda inuu horumaro waa dad isku xiran community oo macnaha ka shaqeeya dantooda ay noqonayaan laakiin dadka kale oo goobaha waxbarashada ay leeyihiin waxa dareemaysaa in ayaga isku maqan yihiin marar qaar waxa laga yaabaa in ayaga isdagaal oo ka dhaxeeyo conflict oo ka dhaxeeyo hatta aysan xalin karin conflict-ka dhexdooda oo laga yaabo dad waaweyn oo familkii mas'uuliyiinta dadka waalidka ah hataa inay markay isqabtaan aysan isxalin karin oo meeshii ayaga dagaalka ay hurmuud ka noqdaan hataa ay keenaysaa marka marnaba isku mid ma aha deegaan waxbarasho iyo deegaan waxbarasho aysan lahayn isku mid ma aha macnaha dadka lifestyle-ka dadka waxbarashada deegaanka waxbarashada jooga wuu ka fiican yahay dadka deegaanka waxbarashada aan haysanin ku nool bulshada ka faa'iideysta goobaha waxbarasho waxaa la gudboon in horta ay ka shaqeeyaan ay fahmaan waxbarashadaasi inay tahay wax ayaga horumarinayo wax ka shaqeynayo ayaga horumarkooda noloshooda marka mar walba inay u istaagaan caawinta dadka ka shaqeeya goobaha waxbarashada
gacanka geysiga goobaha waxbarashada inay gacanka geystaan hadday wax ay ahaan lahayd xag fikir hadday ahaan lahayd xag lacag hadday ahaan lahayd xag adin intaba macnaha dadka goobaha waxbarashada hareerihiisa jooga inay ka shaqeeyaan horumarinta goobahaas waxbarasho inay ilaashadaan goobaha waxbarasho aysan iska burburinin maadaama ay tahay goobihii ayaga laga hagayo oo central ku ahayd ee ka shaqeynaysa horumarkooda beriyahan dambe waxyaabo waxaa jiro hataa arday lama dhihi kara bulshada dhan saameeyey waxa la yidhahdo social media internet anaga Soomaali haddaan nahay Soomaalida horta waxa waaye dad xiisoolayaal waa macnaha wax walba waa sidii loo isticmaalayna si ka duwan ay u isticmaalaan mar walba aaladda la yiraahdo internetka social media waa aalad positive loo isticmaali karo negative loo isticmaali karo si qaldan loo isticmaali karo si wanaagsan loo isticmaali karo caalamka waana la isticmaalaan ma fiirinayno caalamka iskuulada ka jiro waxba ka jiro hadda iskuulaadka anaga hadda waxaan sameynaa ardayga protocol aan u sameynaa waxaan dhahnaa ardayga inta xiisada ku jiro hadii la soo waco faro taagana banaanku baxa laakiin asigoo mobile ku jiro hadii la arko banishment waaye waxa loo sameeyay xeer loo sameeyay in xiisada laga saaro xiisad kale laga saaro waalidkiisa la waco laakiin si ardayga marka wuxuu kula joogaa saacado kooban markuu ka tago teknoolajiyada marka saameynta ay keentay waxa waaye dhibaatooyin fara badan ee ardayda ku keentay xitaa sanad ka dambeeyo ardayda micnaha aqoontoodii weli dad active way jiraan laakiin si la rabo ma waxa keenay waxa waaye reading kooda uu yareeyay ardayda waxbarashada sideedaba aqrin waa qofka inuu wax akhriyo oo analyze sameeyo qof markuu wax akhriyo analyze uu sameeyo waxbuu isweydiina macallinkii su'aal weydiina ardayga marka wixii inta meesha kula joogo markuu dhageysto analyze badan soo sameeynayo akhrin ma sameeynayo wuxuu ku mashquulsan yahay mobilkii guriga markuu tago internet ugu xiran mobilka baabuurka markuu saaray internet uu isticmaala guriga markuu tago khaasatan wuxuu keenaa bahalkan nerve waa daala qofka maskaxdu ka daala waxa ma akhri karaba subaxii mararka qaar waxa arkaysaa arday ay ka muuqato psychology marka u fiiriso daal uu ka muuqdo dhafar ay ka muuqato waxa laga yaabaa habeenkii oo dhan inuu khad ku jiro marka ama uu internet oo wax fiirinay social media Facebook inuu ku jiray oo waqtiyo badan uu geliyo oo iskuulkiina ka soo daahay subax xataa uu daahayo oo agajiidayo arday qaar ah jirto marka niyo saameyn badan ayuu keenay social media macnaha waxa waaye qofkan asaa is xakameyn karo laakiin ardayga waxa laga rabaa waalidka inuu xakameeyo la rabaa ilaan ardayga markuu iskuulka joogo waxa xakameynayo maamulka iyo macallimiinta ardayga gacanta ku haya laakiin markuu ardayga iskuulka ka tago controlkiisa iyo la socodkiisa waxa laga rabaa waalidka laga rabaa dhibaatadana haysato waxa anaga waalidka marka boqolkiiba waxbarashada boqolkiiba 60 waxay ka imaataa environmentiga boqolkiiba inta kalena waxay ka imaataa iskuulka ka imaataa formal education ka imaataa informal education waxa ardayga markuu ka tago jaa waxbarasho u socdo jidka markuu maray waxbarasho u socdo saaxiibo la kulmaa wuxuu arkayaa Facebook oo wata video TV oo fiirsanaya waxaas oo dhan waxa laga rabaa waalidka inuu ardayga wacyigiisa inuu kor u qaado inuu la sheekaysto cunugiisa inuu dhahayo inuu waaniyo talooyin uu siiyo inuu caqabaadkii asiga inuu u sheego anaga waxa laga yaabaa waalidkii inuu subax soo u baxo habeenkii inuu yimaado arday iska dhaafay hataa inaysan is arkinba oo ku dhaho marka ay wiilkayga kaale ma gale oo ku dhaho marka macquul ma aha inuu ilaahay iska hanuuniyo waa laga yaabaa laakiin ardayga waa inuu waalid walba cunugiisa waa inuu la socdaa inuu talaabo ula socdo in meesha uu marayo waxyaabaha uu saacadaha badan meesha waqtigiisa ku dhumiyo dadka uu la saaxiibayo inuu ka control laga rabaa marka technology-da marka dhibaatooyin far badan ay leedahay laakiin tan iskuulka kaliya lagu ma xali karee inay iska waxa lagu xali karaa in waalidka iyo macallimiinta iskuulka iska kaashadaan oo ardayga macnaha laga xadido goobaha waxbarasho waxay u keeni karaan bulshada horumar waxay u keeni karaan waxaan dhihi karaa horta in la ilaaliyo macallinka maxaa yeelay goobta waxbarasho waxa dhaqaajiyo waa macallin haddana maanta waxaa la marayaa bulshada qof walba macallin ah in macallinimadii duruuf ay ku hayso oo macnaha la dhaho mar walba macallin bataajiro macallin macnaha dherigiisa iyo dhuunkiisa ma dhaafo macallinka waxaan aaminsanahay maanta qof walba dunidan oo hormuudka ha ahaado hogaamiye ha ahaado dhakhtar ha ahaado engineer waxa soo saaro waa macallin marka macallinka wuxuu u baahan yahay motivation badan daryeel fara badan hadii waxaan aaminsanahay macallinka la daryeelo la ilaaliyo motivationkiisa la ilaaliyo salarigiisa la ilaaliyo caafimaadkiisa la ilaaliyo wuxuu soo saarayaa dad waxtar leh hada wadan horumar hada dalka Japan oo kale hadaan su'aal u soo qaato waa meesha adduunka ugu mushaarka badan macallinka waana arkaysaa teknoolajiyada heerka ay ka joogaan ciyaalka yiriska teknoolajiyada sameynaa maxaa keenay macallinka maskaxdiisu maala habeenkii macallinka wuxuu sameynaa cashiro wuxuu sameynaa macnaha applied macallinka macnaha motivation waxba wado
معناها معلنكي وحواي لكن إذا معلنك هدي اللي يرادو معلنك إسكا لونكيس ما دافعه شو معه كلاواي وحياوي هراء أو ضدك صح واي معلنك معناها شغل رسالة واي لكن إن لا أنا بهدل المعلنك وموتيفيشن الله سماه ما دام وقعنته كهايو هرمرك بالشدة هرمرك بالشدة اختر مجرى معنا الآن إنجنير مجرى معنا الآن ضد كرت إنه يتاسف همان على الربا لكن ضدك ما أنت مفاسر حلو ليه إسكا معلن هذا معلن دكسي خاصة معلمين دكسية أيها مدن مركه هره كده معلمين تي أو سكولات كأيجنا إن لقى الشغل إلى لكن أنا هدان هاي سومالي هدان هاي قيمة منوقف ده معلنك وحنا إسكا معلنك واي إسكا بس واقع marka in macalinkii wala dawlad wala dadka waxay macalinka waxa laga aaminsan yahay macnaha qof oo macnaha maaragtay iska salary oo iska saabuntiisi wax inuu qof iska qaato laga aaminsan yahay marka waana qalad arintaas waligeedna laga ma baxayo jahwareer macnaha macalinka wuxuu keenaa hadii la ilaaliyo dad nadiif u soo saara dad nadiif hadii la environment-ka nabad galay environment nadiif ah soo baxay marka macalinka marka hore in la ilaaliyo ko needskan in la ilaaliyo ardayga school marka la sheegayo waxa waa environment students tools iyo teacher waa macalinka hadii la helo waa in la helaa toolski waa in la helaa environment suitable ku haboon macalinkii wax baraayay environment qalabka macalinka u baahan inuu helo buugaagta inuu helo curriculum oo tayo leh inuu helo in la helo environment meeshii ardayda ku haboon oo fiican in la helo in ardayga waxyaabaha uu u baahan yahay ihtiyaajadkiisa oo laabki in la helo markaas waxa soo baxayo arday tayo leh macalinkii selectionkiisana la saxo macalinka hadii la iska dhaw documenti wax la iskaga xulana la dhaho documenti okay documenti laakiin qofkii la qaadanayo meesha siito imtixaan laga qaado process la marsiyo hadda dhibaatada dalkeena ka jirto waxa waaye ma jirto weligeena ma arkeen ilaa hadda ilaa qaliilan boqolkiiba hal neetaa ma leenayo meel qof documenti uu dhiibanayo ama qof oo imaanayo aniga waxaana xirfad u leeyahay imtixaan ha laga qaado ilaahay imtixaankaas process la marsiyo lagu qaato ma wajiro meeshan hadda ma wajirto macnaha waxaan ku talinaa marka si loo helo macnaha waxbarasho tayo leh environment tayo leh in marka hore la ilaaliyo macalinka mishinka ka shaqeynayo waxa waaye waxaas waa macalinka waa qofka dadka soo saaraya waxa macalinka waa hadda anaga dalkeena sources badan uu leeyahay laakiin sourceska mar walba la sheegay xeeb waxaan leenahay xeebta ugu dheeraan leenahay badaan leenahay laakiin no development maxaa keenaya dadkii aan wili far lagu heen macnaha macalinka dadkina waxa soo saara macalina soo saara marka dad wacigooda hamigooda uu sareeyo dad wixii ka shaqeynayo macalina soo saara marka macalinka in la ilaaliyo waxyaabaha uu baahan yahayna macalinka in la helo ardayga waxyaabaha uu baahan yahay in la helo environment-gana in la hagaajiyo